inaynu dul marro cabbaar dowladdii oo bilaa madaxa magaalooyinkii oo ciidamadii jabeen iyo Jenkins Khan waxa uu ka yeelay dowladda tan labada gobol ee ugu waaweynaa waxay ahaayeen gobolka la yidhaahdo Khurasan iyo gobolka la yidhaahdo Faris ama aan idhaahdo gobolka la yidhaahdo Khurasan Faris waa u soo noqon doonaa iyo gobolka Khawarizm Khurasan waa gobol ku yaala waqooyiga Afghanistan iyo bariga Iran intaasoo la isku daro ayaa taariikhdii muslimiinta hore loo yaqaanay Khurasan waxa ku yaalay magaalooyin waaweyn oo caan ah oo ay ka mid ahayd Balkh ay ka mid ahayd Marwa ay ka mid ahayd Nisabur ay ka mid ahayd Harrat waa magaalooyin inta badana maqashaan fulana Nisaburi imaamu Muslim oo kale ama fulan al-Marwazi waa reer Marwa ama al-Balakhi magaalooyinkaasi waxay ahayd magaalooyin waaweyn oo muslimiinta dhulkay deganaayeen ilaa laga soo gaadho Ghazna dawla al-Ghaznawiya dhulkay joogi jirtay Ghazna waa Kabul hoosteeda ilaa 150 kilomitir bay ka hooseysaa Khawarizmna waa magaaladii Samarqand aan sheegaynay bay bari ka sii xigtaa iyadu markaa ama aan idhaahda galbeed waqooyi bay ka xigtaa galbeed waqooyi ayay Samarqand ka xigtaa waxaana mara webiga Jiixoon loo yaqaano oo markaasi hadda dhex mara labadan dawladood ee Uzbekistan iyo Turkmenistan la yidhaahdo Jenkins Khan wuxuu ku talagalay inuu bulshada madaxdeedii duntay marka hore baqa geliyo si aan cidnaba uga hor imanin dabeetana saddex kooxood oo ciidamadiisa ka tirsan ayuu kala diray saddexdaa kooxood koox wuxuu u diray iqliimka loo yaqaano Farghana waa gobolka ugu xiga China markaasi dawladda al-Khawarizmiya dhowr iyo 10 dawladood oo imika jira ayaa la isku oran jiray dhanka China ay xuduud kala lahayd dhankana Ciraaq bay xuduud kala lahayd dhankan sare Qawqaz oo dhan bay haysatay dhanka hoosena ilaa Sind bay joogtay webiga Sind mara waa Pakistan webiga dhex mara Pakistan qaybteeda koonfureed Karman la yiraahdo waxa soo dhameeyay dawladda ma ka tirsan marka waa dawlad aad u ballaaran si hadda waxaan joognaa qaybteedii sare oo ah dhulkii buuraleyda ahaa dhulkii barwaaqada badnaa dhulkii dawladdu ku xoog badnayd qaybtaas sare marka aynu joogno kooxda koowaad wuxuu u diray magaalada la yiraahdo Farghana waa Uzbekistan bay ku taallaa waa magaalooyinka marka iyada iyo Otrar baa ugu xigay dhanka China 500 kilomitir baa markaa bari looga kacayaa Samarqand oo meeshii markaa uu joogo duqii Jenkins Khan ahaa koox labaadna wuxuu u diray magaalada Turmud imaam Tirmid intaba way u akhriyaan imaam Tirmid magaaladu ka yimi weeyaan saaxiib sunanka wadankan hadda Uzbekistan la yiraahdo ku taala wuxuu kaloo diray iyadu 100 kilomitir oo qoray koonfur ka soo xigta Samarqandada marka aynu joogno wuxuu kaloo diray koox kale oo qalcad weyn oo Kalaba la oran jiray oo qalcadihii ugu waaweynaa ee Nahru Jawxun ku yaalay saddexda firqadood buu diray saddexda meelood buu kala diray saddexda meeloodba dadkii ku noolaa waa shacab dhulka la simay ragii waa la laayay dumarkii waa la adoonsaday carruurtii kadalik wax kasta oo ka jiray wuu tirtiray waa ka uu tilmaamayo روات التاريخ ذي كم دبا وحليه وحيد هذا بيقول إن التتار لا يرتوون إلا بالدماء ولا يسعدون إلا بالخراب والتدمير وإنهم لا يهزمون بين هذا تتاركو كما هرات بيلان ديق مويان وديق يعبو وحيكلوكو سفينيين ليبان تيا فرحة ديا براره هي سرادة ديا برواقة وحي قادان marka uu ummad la halaagay la tirtiro
yacni waa joogkooda waa cayaartooda iyo faraxooda iyo rayrayntooda iyo saraadada iyo barwaaqadooda waxay helayaan marka ay dad tirtiraan. ka saddexaad waxay yidhahdeen waa ciidan aan la jebin. maxaad u malaynaysaa shacab risaalada la gaadhsiinaya ay noocaa tahay dowladdeedii sarena ay duntay. jinkisaan iyo ciidamadiisii markaa waxay soo galeen markay saddexdaa magaalo soo baabi'iyeen ee dadkii la wada baqogeliyey ayaa waxaa loo soo kacay afghanistaan waqooyigeeda waa dhulkan taajiku degaan. waxaa la soo qabtay magaalada la yidhaahdo balkh markay yimaadeen waxaan hore loo arag bay sameeyeen laakiin dambay ka lahaayeen. reer balkh way u soo baxeen waxay ka dalbadeen ammaan magaalada inay nabadgelyo ku soo galaan dadkana ay nabadgelyo siiyaan lana ogol yahay inay dowladda tataarku meesha soo gasho. ammaankii buu siiyey dabeetana wuu dhaafa. wuxuu tegay magaalo kale oo waqooyiga afghanistaan ku taalla oo taalaqaan la yidhaahdo. taalaqaan iyada markii uu tegey waa dhul qalcado waaweyn leh xusuun tiro badan leh. dabeetana way isdifaaceen. dhowr bilood buu go'doomin ku hayay. dhowr bilood kadib waa la jabsaday. wixii rag sheegan jiray wuu gumaaday. dumarkii iyo carruurtiina farsamadiisiibuu ku isticmaalay. wuu soo dhaafay. wuxuu yimi magaalo loo yaqaano marwe markii uu soo galay waa magaalo weyn marwe oo turkmanistaan ku taalla. balakht aynu markaa sheegayna uu cahdiga siiyey 450 kilomitir ayay galbeed ka xigtaa. magaaladaasuu soo galay. magaaladan markii uu ku soo socday reer balkh buu soo maray. qoladii uu ammaanka siiyey wuxuu yidhi idinka ammaan baan idin siiyey laakiin bishart way la dagaalgelaysaa. waynu wada duulaynaa mar waynu ku wada duulaynaa marka ammaankiinu saasuu ku sugmaya. dadkii waa iska baqeen waa aqbaleen. axad alkutaab raghib asirjani baa wuxuu leeyahy reer balakh mar kastoo muslimka la jebinayo ma sidan bay u dhaqmi jireen. balakh waa meesha iminkana maxaa la yidhaahdaa laba meelood oo casrigan aynu nool lahay gaalada caawiyey ayaa ahaa taariikhdii tataarkana labadii kooxood ee caawiyey. qola waa kurdida waqooyiga ciraaq degta. tataarka way soo caawiyeen dagaalkii baqdaad iyo dhulka lagu qabsanayana way ka soo qayb galeen. waynu iman doonaa. qolana waa waqooyiga afghanistaan qolada joogta. labada qolee hadda maraykanka soo caawiyay ayaa tataarka markaana caawiyey. waxaa la yidhaahdaa reer balakh waxay raaceen tataarkii dagaalkay la galeen. ciidan ballaadhan oo uu hogaaminayo jinkiskaan wiil uu dhalay ayaa marwo soo qabtay. reer marwi iyagu waxay go'aansadeen inaanay isdhiibin dirirna inay galaan. dadkoodii bay mobilize gareeyeen. 200,000 dad gaadhaya oo ciidan ay ka dhigeen bay dabadda ugu soo saareen. ninkan aan dabadda isku haleelaa la yidhi. dabadda muddo laysdilay. dagaalkii cabbaar buu socday. muslimiintii waa sabreen. tataarkiina waa u sabreen. waa la isgumaaday. akhiiran waa la jebiyey qoladii muslimiinta ahayd. waayo nafsiyaadka dadka muslimiinta waxaaba ku jira dee tataarka waa jeysh alaxmarkii ay odhan jireen laysma hortaagin waa jabeen. waqca rahiiba baa dhacay. muslimiintii 200,000 ahaa intoodii ugu badnayd waa la laayay. baaqigiina maxaabiisnimaa loo qabsaday in yar mooyaane. kadibna magaaladii marwo la odhan jiray ayaa la go'doomiyey. xisaar lagu sameeyey. 4 maalmood markay go'doon ahayd ayuu ina jinkiskaan waraaq u qoray. ninkii qaa'idka magaalada ka ahaa wuxuu leeyahay niyow wixii dhacay dhace hadda aan nabadgelyo kala saxeexanno. waxaan idin siinayaa magaaladiina tan ammaan bishart. ammaanka aan ku siinayo waxaan rabaa inaynu kala saxeexanno aada soo baxdo aynu wada hadalno. ninkii magaalada madaxda ka ahaa arrinkii wuu aqbalay. mar haddii magaalada laga guurayo caynkana ammaan la bixinayo dagaalkiina wuu ku qadhaadh yahay wuu soo baxay waa u yimi. markii uu yimi ina jinkiskaan wuxuu faray in sida boqorrada loo soo dhoweeyo.
waxaa la sameeyey soo dhoweyn weyn, xaflad baa loo sameeyey. ninkii madaxda ahaabaa meesha yimi, waa la ixtiraamay, waa la maamuusay. kadibna wuxuu yidhi waxa aan rabaa heshiiska aynu wada gelayno in dadkaagii waaweynaana kaala qayb galaan, isla markaana dee dawlad weyn baanu hadda nahay oo dhulkii ka talinaysee inaannu dadkii magaalada ama duqayda ahaa ama dawladda saraakiisheedii sare ama waxa kan wixii noo shaqayn karee dee shaqo qaban karana inaannu dooranno heshiiskaa wada gallo ayaan doonaynaa. marka adiga waa ku soo dhoweynay, noqo duqaydii iyo waayeelkii magaalada noo keen. dib buu labtay, wuxuu u yeedhay dadkii madaxda ahaa, dadkii isaga ka agdhadhowaa, dadkii waayo wuxuu u ballan qaaday inuu dhul siin doono, inuu maamulka ka qayb gelin doono, inay dad laysfahmo noqon doonaan. ninkii magaalada madaxda ka ahaa marwe dib buu dadkii ugu laabtay, wuxuu keenay wixii magac iyo maamuus ku lahaa magaalada. markii uu dadkii soo ururiyey oo soo dhoweyntii loo sameeyey oo meesha yimaadeen, ina Jenkins Khan wuxuu amar ku bixiyey dhammaantood in la xidho. dhammaantood xadhiggaa loo jiiday. dabeetana wuxuu yidhi laba su-aalood oo qudhaan idinka rabaa. magaalada wixii maalqabeena liiskooda qora, wixii farsamo yaqaanee techniciana xirfadyahanee sanaaciinana liiskooda ay sameeya. waxaa loo qoray magaalada wixii dad waxhaysta deganaa ee maalqabeen ahaa. waxaa kaloo loo qoray magaalada wixii joogay farsamo yaqaan. intaasi markay dhacday, magaalada madaxdeediina la hayo, askarteediina hore loo soo laayay, wuxuu yidhi magaalada ha laga soo baxo, dadkao dhan ha loo yeedho. dadkao dhan baa la ysugu yeedhay. markii ummadoo dhan la ysugu yeedhay buu kursi dahaba meel loo dhigay, waana Jenkins Khan halkiibuu fuulay. awaamirtaan soo rogayaa buu yidhi hadda. amarka koowaad, wax allaaliya wixii madaxa shacabka hortiisa ha lagu bireeya buu yidhi. wixii madax ahaayoo dhan dhegtaa dhiigga loo daray, waa la gowracay. intaa kadib buu wuxuu yidhi wax allaaliya wixii farsamo yaqaan ah qaraqoram ha loo diro. qaraqoram waa caasimaddii Mongolia markaasi iyo tataarka looga talinayay. caalamulislaami iyagaa technologyga dunida markan hogaaminaya, iyagaa farsamada looga dambeeya. wax allaaliyo waa dagaalkii labaad Germany markii la jabiyey wixii lagu sameeyey. wax allaaliya wixii wax aqoon ahaana wuxuu yidhi ha la diro. farsamo garanayay waxaa loo diray qaraqoran baa loo diray. waxaa soo hadhay wixii maalqabeena. wixii maalqabeena buu yidhi iyaga waa in la toorjar gareeyaa ilaa intay ka caddaynayaan wixii khasnad magaaladan taallay meesha ay taallo. wixii taajir ahaana waxaa lagu guray, garaaca loo diray iyo tumista. waxii adduun ay hayeen iyana waa sheegeen. magaalada buu yidhi ciidanku ha galo, wixii wax fiicanee thamiina, shay qiimale yaalla, lacag yaalla, dahab yaalla, wax quruxle yaalla, waxaasoo dhan magaalada ha laga soo guro buu yidhi. ciidankii magaaladay galeen, wixii wax qiima yaallay oo dhan baa la soo guray. 3 maalmood ayaa la gurayay magaalada wixii yaallo, askartu shaqo kala haynin. wixii magaalada nafle yaalla in la ururiyo 3 maalmood baa la gurayay baa la yidhahaa. xataa guritaanku wuxuu gaadhay bay yidhaahdaan boqor hore boqorradii muslimiinta ka mid oo sanjar lo odhan jiray ayuu yidhi xabaashiisa ha la qodo, isna dahabiyo wuxuunbaa malaa ku jiray. xataa boqorkii sanjar lo odhan jiray xabaashiisii waa la qoday iyadoo la baadi doonayo wuxuun in la heli karo. intaasi markii ay dhacday ee magaalada wixii hanti yaallayna la qaatay, ayuu amarkii kama dambaystaha bixiyey. wuxuu yidhi magaaladani wayna la dagaalantay, ciidan baana inugu soo saartay, waa maanta laga bilaabo ha la laayo dhammaantood. wuxuu soo rogay qaanuun labaad oo ah dadka magaalada jooga oo dhan in la laayo. magaalada dhammaanteed baa la dilay baa la leeyahay. ibnu Lathir fii kitaabihi alkaamil wuxuu leeyahay ina Jenkins Khan wuxuu amar ku bixiyey markii dadka la wada laayay in meydka loo tiriyo buu yidhi. dabeetana meydkii baa la soo tiriyey. tiradii meydku wuxuu noqday buu yidhi 700,000 goob qura la wada dhigay. 700,000 oo qof oo hal magaalo degan
yacni waxaad ka fakertaa cawaasimtii dunidu dhulkaasay ahaan jirtay waaga meelaha ugu badan ee bini aadam dega bay ahaan jirtay 700,000 oo qof baa madaxa laga jaray magaaladiina buu leeyahay marwo la odhan jiray ikhtafaa dikruha min ataariikh buu leeyahay warkeedu taariikhda halkaasuu kaga baxay intaa markii ay sameeyeen bay ka dhaqaajiyeen waxaa la qabtay magaalo la yidhaahdo naysabur iyana waa magaalo weyn oo khuraasaan gobolkaasi ka mid ah waxay ku dhacdaa waddankan hadda eeraan la yidhaahdo waqooyi berigiisa bay ku taallay naysabur markii uu yimi reer naysabur iyana way isku dayeen inay isdifaacaan 5 maalmood ayuu go'doomiyey go'doonkaa 5 maalmoodii markii uu dhacay oo xisaar lagu hayay oo dadkii baqeen oo naftii isugu timi oo wararkii marwe iyo dee samarqando iyo bukhaare iyo talq iyo wixii uu magaalo soo baabiiyey warkoodii la hayo dadka waxaad mooddaa intaan laba soo gaadhin inay geeri baqayaan yacni baqdin daraaddeed inay geeriyoonayaan ayuu akhiiran magaaladii furtay dabeetana wuxuu yidhi magaalada dadka ku jira oo dhan dabadda ha loo soo saaro meel saxaaraha la isugu soo saaro magaalada markii dadkii ku jira oo dhan dabadda loo soo saaray ayaa waxay sheegayaan ina Genghis Khan baa loo tago waxa la yidhi magaaladii hore aynu laynay dadkii badhunbaa seeftu ku dhacday oo iyagoo aan dhimanin laga dareeray dadku may wada dhimanin dadkani waa dad raba inaan qof noolaanin almuwafaq albaqdaadiy taarikhyahankaasi wuxuu lahaa lama arag buu yidhi dad u soo baxay inay wax tirtiraan la arag buu yidhi dad intay dal qabsadaan raba inay xukumaan markaas buu yidhi tataarku mulki iyo waxbaba may doonin inay wax tirtiraan umay rabeen waxaa loo sheegay magaaladii hore ay tirtireen 700,000 lagu dilay dadkii wax nolol uun ku sugnaa inay jiraan wuxuu yidhi magaalada tan dabadda ha la isugu soo saaro kadibna wuxuu amar ku bixiyey magaaladan si aan u hubiyo dadkeedu inay dhinteen dilku waxa weeyaan buu yidhi qof kasta waa in madaxa la gooyaa qaar kasta madaxa iyo inta kale waa inay kala baxdaa dadka madaxa ha laga wada jaro si loo xaqiijiyo qofku inuu dhintay culamada taariikh waxay yidhaahdaan magaalada tanna bil istithnaa iyadaan waxba laga reebin ayaa raggoodii madaxa laga jaray wixii dumar ahaana la ka haystay 15 maalmood baana magaalada baadhitaan lagu waday oo dahab iyo lacag iyo xoolo laga raadcaynayay nasaburna waxay ka tageen baa la yidhaahdaa atharan bacda cayn raad iyadoo ah meeshii magaalada ahaan jirtay iyana saasaa lagaga tegay harraad magaalo la yidhaahdu soo galay haddana afghanistan waqooyigeeda ku taalla ibnu Genghis Khan waxba iyaan taariikh balballaadhin siduu kuwii hore u galayana wuu ka takhallusay magaaladan markii la leynayay nin boqora haystay oo la odhan jiray Malik Khan boqorkiina waxoogaa yaroo ciidankiisa ka mid u qaatay casrigaa waxay caan ku ahaayeen boqorradu ibixiya u bixi intay yidhaahdaan wuxuu kaxaysan karaa intuu kaxaystay inuu taw yidhaahdo waaw in ciidan uu kaxaystay dabeetana meeshii buu ka baxsaday magaalo bilaa ciidan uu soo galay kadibna wuu tirtiray khuraasaan 617 hijriyada sanadkaa gudihiisa ayaa dhammaanteed la tirtiray culamada taariikh waxay leeyihiin min acjab alumuur alatii marat biاlardi iطlaaqan weeyaan bay yidhahdeen lama arag khuraasaan bay yidhaahdeen oo dhammaystiran sanad gudihii wakhtiga yare intaa leeg in sidaa loo galo taariikhda hore iyo dibtoona looguma arag khuraasaan markuu hubiyey inuu tirtiray ayuu ka tallaabay gobolkii boqortooyadu ay deganayd khawaarzam alkhawaarzami buu ahaa boqortooyada iyo dowladda oo dhammi gobolkaas dowladda laga xukumi jiray ayuu u waacday gobolka kani wuxuu u dhexeeyaa uzbekistan iyo turkmanistan labadaa dal dhexdooda buu ku yaallaa waxaa mara webiga jixon la yidhaahdo khawaarzam waa magaalo hani ah xagga dhaqaalaha istraatiiji ah oo meel khatara ku taalla population aada u tiro badani degan yahay boqortooyadii waddankan maamuli jirtay dhulka dadkoodii degan yahay ah
kadib maadaama ay taliskii meeshu ay ahaan jirtaya Genghis Khan wuxuu u diray ciidamadiisii ugu tiro badnaa Khwarizm wuxuu kaga xisaabtamayaa maadaama dad badan ina degan yahay dagaallo xooggan inay la kulmaan ficlan way isku dayeen gobolkan dadkii degi jiray iyo magaalada tan inay isdifaacaan 5 bilood ayay qaadatay inuu xisaar ku hayo go'doomin 5 bilood wuu furan kari waayey ciidankii tataarka waa u suurto geli weyday inuu dabeetana waa la soo kordhiyey ciidankii tataarka mar labaad ayaa la tiro badiyey ugu dambayntii waxay ku guulaysteen tataarku derbiga qayb ka mid ah aswaar baa magaalooyinkii qadiimka ah ku wareegsanaan jiray derbi difaac laga galo derbigii qayb ka mida buu dumiyey dabeetana wuu soo galeen dagaal baa bilaabmay dagaal aad u halisaa qabsaday labada kooxood baa waxaa la yidhahdaa tiro aad u badan baa ka halaagsantay yacni dad aad u tiro badan waa la isku madhay markuu arkay Genghis Khan ciidamadiisa inuu khatar ku jiro ayuu haddana madad kale u soo diray ciidan saddexaad baa yimi oo tataarka ah laakiin magaaladan yara miskiinta ayada cidi uma maqna waayo muslimku qolo waliba tuula gaara baa naftu kaga baxday wixii isku xidhi jirayna waa tii la waayey ee boqorkii baxsaday magaaladii waxay isku daydo inay dagaal ku jirtaba akhiiran waa la jebiyey dabeetana dadkii wax dhuunta wax godgala wax baxsada waxba sibay yeeleen baadhitaankaaba inugu tiro badanaya bay yidhaahdeen maxaynu samaynaa magaaladan wuxuu go'aamiyey magaaladu waxay leedahay dhaam aad u weyn oo webigan biyo uu ku shubo oo sad dheer derbi dheer uu magaalada ka xigo wuxuu yidhi magaaladan waa inugu rabshad badataye sadka ha la dumiyo derbigaa la dumiyey dhaamkii magaalada ku yaallay baa lagu faruuray Khwarizm webiga Jiixoon baa lagu daray ilaa hadda webiga Jiixoon bay ka mid tahay magaalada gebigeediiba wuxuu raaciyey webiga ayuu ku daray dadka intii baxsatee god gashay iyo meel gashay iyo guri ku dhuumatay iyo kan ku dhuumatay waxa la raaciyey daadka waxay dhahdaan taariikhda lama hayo wax la mid ah qowmu nuux mooyaane qowmu nuux sidii alla u qarqiya badda ugu daray ayaa magaalada tan iyo dadkii joogay dhammaantood badda lagu daray waxa aan ka warramayo dhami waa sanad gudihii waa 617 hijriyada Khwarizmna saas buu kaga takhallusay waxaa markaa uu tataarku gacanta ku dhigay Khuraasaan iyo Khwarizm waddankii la odhan jiray abaadawla alkhawaarizmiya waxaan weli gacanta tataarka gelin koonfurtii dowladda koonfurta dowladda waxa weeyaan kaabul laga soo bilaabo ilaa iyo Bakistan iminka waa intii sare qawqaaziyiinta iyo Iiraan dhinaceeda bariya intaa sare intuu qabsaday waxaan weli gacanta dowladda tataarka gelin markaa dowladdiis khawaarizmiyiinta la odhan jiray koonfurteeda waxaa haysta boqorka inankiisii jalaaludiin nin la yidhaahdo inamadiisii roonroona ka mid ah ayaa madax ka ah haatan wuxuu noqday azaciimi sharci lidawla madaxda qudha ee dee la ictiraafsan yahay waddankii uu leeyahay wuxuu isku dayey inuu ciidamo urursado dhulka intan markaa la isugu soo baxee la isu imanaya waa dhul adag waa dhulka Afghanistan loo yaqaano maanta waa dhul buuraleeya waa dhul aan farduhu si fudud u gelin waa dhul aan taariikhda hore dadka degan loo jibin jirin waa dhul dadka degaa yihiin dad dagaalyahana waa dhul dadka degaa dad xamaasa iimaaniya leh oo wax iska dhiciya waa dhul dadka degaa inta badan aanay aqoonin gumaysiga waxa loo yaqaano saa daraaddeed ciidan buu urursaday uu samaysanayo Genghis Khan uu samaysanayo Jalaaludiin ibnu Muhammad ibnu Khwarizm Shah uu rabo inuu iskaga difaaco tataarkii markii uu ciidankaasi urursaday waxa uu madaxa magaalo la yidhaahdo Ghazna 150 kilomitir bay koonfur Kaabul ka xigtaa halkaasuu degan yahay oo madax uu ka dhigtay caasimad uu ka dhigtay Genghis Khan markuu maqlay ciidan baa halkaa isku urursaday ciidan tiro badan ayuu magaalada Ghazna u soo diray in weerarka lagu qaado meeshan waxaa kaloo yimi ciidamo atraaka oo wato nin la yidhaahdo Sayfuddin Baghraaq oo dagaalyahan ahaan jiray nin dagaalada aad uga caan ahaan jiray qaa'idna ahaa
oo 30,000 oo ciidana wata ayaa soo galay isna wuxuu ku biiray jalaaludiin ciidankiisii waxaa kaloo meesha yimi 60,000 oo magaalooyinkii la tirtiray ciidamadii firdhadka ku soo baxsadaya oo iyana koonfurta soo galay 60,000 way timi idan jalaaludiin ciidankiisii uu urursaday 30,000 oo wato ninka la yidhaahdo sayfadiin baqraaq 60,000 oo baxsigiiya intaas buu isku ururiyey dabeetana waxaa la galay difaac adag waxaa kaloo yimi boqorkiisna haraad ka soo cararay ee malik khan la odhan jiray oo isna in guuta ah wata ayaa isna soo galay waxa meeshii isku urursaday ciidamo badan oo muslimiintu leeyihiin wax soo jabay iyo wax soo madad ku yimi iyo wax meesha sii joogayba ciidamo kumaankum gaadhaya marka kan baa isugu yimi oo waliba firqada turkiga ahi atrakta ahi ay yihiin niman well trained ah askar rasmiya oo wato nin dagaalyahana oo la yaqaana oo yacni takhtiidka dagaal si fiican wax uga garanaya ciidankii waxaa la gartay markaa Genghis Khan iyo ciidamadiisa in loogu baxo dhul istiraatiiji aan magaalada la isku haleelin